حبيبنا ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا ونال ذرى المعالي ألف صلى الله باعث الآمال في ليل الحيارى حبيبنا نوره جل رهيبات الليالي ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها وإياكم. إخواني وأخواتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومؤتمر كيني لحاد سوق من قابين مركز كالتوفيق إسلاميك سنتر maantana waa maalinta koowaad muxaadaradana waa muxaadaradii saddexaad ciwaankeeduna waxa weeyaan asbaabaha uu ku daciifo iimaanka iyo waxyaalaha lagu daaweyn karo. waxay noo soo jeedin doonaa sheekheena Dr. Cali, falyatafaddal mashkuuran maajuuran biidn illah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: ويزيد الله الذين آمنوا هدى. معاشر الإخوة والأخوات، موضوع waxa uu ku saabsan yahay ضعف الإيمان وعلاجه. إيمانك hoos u dhiciisa, nugaylka ku yimaada iimaanka. maxaa keena iimaanka inuu hoos u dhaco? maxaase dawo u noqon kara? waxaa laga yaabaa mawduucan marka laga hadlayo in aysan suurtagal ahayn qof meeshan fadhiyo ka badbaaday inuu jiro. ka bilow qofka kelimadda jeedinaya ilaa aakhir waaxid waa xaalad nagu timaada oo aynan marnaba ka badbaadi karin. qof kastoo innaga naga midihi hadduusan xaaladdan aanu ku jirin amaba aanay soo marin, wuxuu halis u yahay mar uun inay ku iman doonto haddii laga waayo asbaabihii iimaan kor ugu qaadi lahaa. haddii meel kastoo la isugu yimaado muntadayaadka sidan oo kale ah oo dadku wax ku kala gadanayaan, oo dadku wax ku kala iibsanayaan, ay caado u tahay inay meesha ay soo dhigaan jihaaz ama qalab lagu cabiro qofka dhiiggiisa meesha uu marayo, sonkortiisa meesha ay taagan tahay, uu ku ogaanaya garaaca wadnihiisa wixii la mida. waxaa habboonaan lahayd in la helo jihaaz kale ee lagu cabiro qof kastoo inaga mida iimaankiisa meeshuu taagan yahay. laa shak qof walba meel buu u taagan yahay. iimaanu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam iyo iimaanu abi bakrin marka laga hadlayo iimaankeenoo kale maaha, farqi weyn baa u dhexeeya. saa darteed waxaan meeshan ka tirin doonaa biidni illaahi subxaana wa tacaala qodobo. kelimadduna ma dhaafsiisna inaan tixi doono qodobo la xidhiira iimaanka, sababaha
keena inuu hoos u dhaco iyo habka marka lagu daweyn karo laakiin qofku markuu xanuunsan yahay ama xanuun markuu ku yimaado dhakhtarka marka loo geeyo wuxuu sameeyaa tashkhiis diagnosing baa la sameeyaa in la ogaado qofka kan horta maxaa keenay cudurkan inuu ku dhacay laakiin isaga waxa ugu horeeya symptoms waxbaa ku yimid caraad baa ku timid madaxa laga hayaa maalmahan baan socon waayey wareer baan isku arkay xaaladeedu caadi maaha kadib baa dhakhtarkii loo geeyaa wuxuu leeyahay waxaa kuugu wacan sida iyo sida dawadaadana waa sidaas saa darteed waxaan u baahannahay sideen ku ogaan karaan aniga idin hor fadhiya idinka walaalaha iyo hor fadhiya in iimaankeenu uu dacfi uu ku jiro hoos marka u dhacsan yahay xaaladahan soo socdaan tixi doona biidnillahi subxaanahu wa tacaala oo qaarkiin hore u maqleen waxay muujin doonaan haddaan iska helno waana 22 qodob weeye haddaan iska helno inay nasaaran tahay sida ugu dhaqsada badan inaan raadina asbaabta keentay asbaabuhuna ma aha mid iyagu markaa meel keliya taagan oo standard ma aha sababta aniga ii keentay midda adiga kuu keentay way kala duunaan karaan waxaa laga yaabaa asbaabo guud ahaaneed oo dadkoo dhan si wadar ahaaneed u jamcida iyo asbaabo dadka ay kala duwan yihiin baa jirta waxaa laga yaabaa marka hebel sababta ku keentay iimaankiisa inuu daciif u noqdo iyo hebel waxa ku keenay inay kala duwan yihiin waxyaabo fara badan oo guudana way jiraan salafkii markaa laga soo xigtay biidnillahi subxaanahu wa tacaala ikhwaani qofka marka uu dareemay in iimaankiisu dacfiga uu soo galay markiiba lama soo istaago iimaankayga waa daciif ama hoos buu u dhacay laakiin wuxuu isticmaalaa erayo kala duwan maruu yidhaahdo cibaadadii macaankii aanu hayn jira ma hayo waan gelayaa salaaddii sidii loo baahnaa ee loogu dhadhansan lahaa salaaddii qofku u dhadhansan lahaa uma dhadhansado waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo qur-aanka marka la aqrinayo ima saameeya qur-aankii waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo niyoo maalmahan waxaan isku arkay macaasidu inay ii sahlan tahay qofka markii uu hadalladaasaa ugu dul meeraysanayo arrinkaasu waxa weeye duq naaquus aljaras buu garaacaya wuxuu leeyahay iimaankayga dacfi baa ku jira arrinkuna wax la qariibsada maaha iimaanku inuu dacfi uu noqdo iyo inuu awood yeesho waxa ugu wacan maxaa yeelay wuxuu ku dul wareegaa wax lagu magacaabo qalbi qalbigana waxaa qalbi loogu magacaabo wuu isrogrogaa wax hadduu isrogrogayo uu miisaan u yahay marna kafadu ay sarayso tan bidixeed tan midigna ay hoos u dhacayso qalbiguna waa sidaas oo kale walidaalika rasuulullah sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi innama alqalbu min taqallubihi qalbi waxaa qalbi loogu magacaabay isrogroga badan uu qalbiga samaynaya qalbi loogu magacaabay markaasuu wuxuu rasuulullah sallallahu alayhi wasallam uu ku mithaaliyey riishad meel taal oo dabaylo ay dhabanayso labada geesna ay ka garaacayso sida ay riishada ama baalka meesha suran uu isu rogrogayo u dheeliyayo aanu markaas si saaniye meel u taagnaan karin buu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam qalbigii mar haddii qalbigu uu sidaa yahay iimaankana uu ku dul fadhiyo inuu marna kor aado marna hoos u dhaco waa dabiica marka uu leeyahay sallallahu alayhi wasallam xadiid waxa uu ku yidhi laqalbu bni aadama asracu taqalluban min alqidri ida istajmacat ghalayana qalbiga aadanaha ayaa wuxuu ka degdeg badan yahay xagga sida dheri karkarayo dab la saaray oo kale isu rogrogo qalbiga ka daran buu yidhi markaasuu haddana wuxuu yidhi ida istajmacat ghalayana markay aad u karkarto xadiid kale wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam quluubta aadanahoo dhanba waxa ay ku jiraan allah subxaana wa tacaala farihiisa suu doonuu ka yeelaa isagaa rogroga meeshuu doonu u jiheeyaa arrinkaa marka wuxuu muujinayaa maxay in qalbigu aanu meel aanu haabit aanu ku ahayn arrinkaa waxaa ka dhalanaya marka iimaankanu markuu inuu kor u kaco hoosna markaa u dhaco walidaalika sala allahu calayh wasalam waxaa ku badnayd ducadiisa allaahuma yaa musarifa alquluub ilaahayow adaa quluubta rograge midka quluubta rogrogow habbit sarif quluubana calaa taacatik ilaahay quluubteena waxaad u leexidaa xagga daacadaada adiga hoggaansankaaga riwaayaad kale waxaa ku soo arooray habbit quluubana quluubtayda rabbi waxaad ku sugtaa diinkaaga ku sug riwaayaadkaas aan tilmaamayn oo dhan waa axaadiid saxiixa sheekh naasirna meelo kala duwan markaa ku tasxiixiyey allah subxaanahu wa tacaala macnahaasuu tilmaamay rasuul maxamed sala allahu alayh wasalam allah wuxuu qur-aanka uu ku yidhi ina allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbih ilaahay baaba kala dhex gelayaba meeshii waxaa imanaysa taxwiil waxaa laga yaabaa in qalbigaaga iimaanka aanu gelin si markaa filtration loo helo
qalbiga si sahlan qalbiga iimaanka uu galo waxa loo baahan dadaal marka in la sameeyo walidaalika waxaan u gudbayaa qodobadii biidni illaahi subxaanahu wa tacaala maxaa muujinaya waxaana jeclaan lahaa qof walbaba inuu tirsado nuqtada lagaa helo hoos ka xariiqo midda lagaa waayana ilaahi subxaanahu wa tacaala ugu mahad celi anoo aniga iska bilaabaya haddaan iska helno qodobadan soo socda iimaankeena khatar buu ku sugan yahay kow haddaad is aragtid ama aan is arko ama qof kastoo muslim uu isku arka xaaladda soo socoto ah inuu macaasida uu ku dhacayo dunuubta teeda waaweynna aanay u kala socnayn dembiba dembiga uu ka daran yahana fududaysta waxaad ogaataa xaaladda khatar baa lagu jiraa walidaalika culimmada waxay yidhaahdaan qofka markuu dembiga uu sameeyo uu maalin kale uu ku soo celiyo maalin saddexaad uu ku soo celiyo caadi u noqonaysa shayga markay caado ay ku noqoto kadib kama xishoonayso wax khajala iyo xishood iyo sariig iyo aad dareemaysid ma laha fagaaraha la isugu yimaada waxaa ka sheegaysaa waxaas baan xala sameeyey guriyaan riba ku qaatay mushkiladaas baan galay allahuma mustacaan laba ruux baan madaxa isku geliyey kuwii tolkeenaha kuwa kale ku soo duulay hub baan siiyey meelahaad ka sheegaysaa maxaa le macaasi caada ku noqotay walidaalika faa'iidadeeda ku jirta qowlahu jalla wacala fi alqur'aan alkariim walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun aayan daa'imin maxaa yeele maxaa walam yusiruu keliya meesha loogu sheegay iyadoo siyaaqa qur'aaniga u iswato maxaa yeele cadamu alisraari cala almacsiya inuu qofka aanu daa'imin waxay muujinaysaa qofka iimaankiisa maxaa yeele hadduu daa'imo caadi u noqonaysa qofka markay caado u noqotana way adag tahay inaad ka dhaadhicdin waxan waa munkar walidaalika sala allahu calayh wasalam xadiid waxa uu ku yidhi kullu ummatii mucaafa ila almujaahiriin dadkoo dhan dembiga waa laga cafiyey ilaa qolyaha marka meelaha la isugu yimaada ka sheega markaasuu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam isagoo sharxaya mujaaharada wuxuu yidhi qof baa xaloo kale xumi samaynaya wuxuu waabariisanayaa iyadoo rabbulcaalamiin uu asturay oo uu daboolay kadib subaxi markuu waabariisuu dadka soo har fadhiisanaya wuxuu leeyahay camiltu albaarixata kada wakada xalay waxaasaan sameeyey xalay iyo xalay waxaas baan sameeyey waad aragtay qof baa wuxuu samaynaya zina ka dhacaysa wuu sharxayaa meeshuu ka bilaabay meesha ka dhammaatay ilaa meesha ku dhammaatay xaaraan buu galay meeshay ka bilaabatay ilaa meesha ku dhammaatuu sharxayaa iyadoo wax sirriigana wejigiisa aanay ka muuqan arrinkaa haddii la isku arko macaasida adoo la jahray haddaad isku aragtid waxaad ogaataa iimaanka dacfi buu ku jiraa saa darteed waa sintamka ugu horreeya een ugu baraarujinaya arrinka labaad qalbiga oo engega qallayl noqda wax gelaya oo khayrana aanu jirin ilaahu maanta haddii lagugu aqriyo wax kasto ay kuu taagan tahay sawaa'un calayna aw cadda am lam takun min alwaacidiin ama na wacdi ama hana wacdinin arrinku jinjin buu noo yaho meel buu noo taagan yahay heerkaa marka la gaarana arrin sahlan maaha walidaalika allah subxaanaه wa tacaala qur'aanka waxa uu ku yidhi ثuma qasat quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaara intaa kadib quluubtiinu way engegtay waxayna la mid noqotay sida dhagxaanta oo kale marka dambe waxa laga joogo dhagxaan in loo gafa maaha dhagxaanta haddii quluubteenna iyo dhagxaanta la isbarbar dhigo oo aan nidhaaho dhagxaanta iyo annaga dhagxaanta naga adag ama dhagxaanta nala mid haddaan nidhaaho dhagxaantii waa loo gafay in loo gafayna waxaa muujinaya qur'aanka aayadda marka la sii wado wuxuu leeyahay wa inna min alxijaarati yaan loo gafina dhagxaanta waxaa ka mida lamaa yatafajaru minhu alanhaar kuwa biyo ka soo burqada wa inna minha lamaa yashaqaq fayakhruju minhu almaa kuwa waxaa jira dhambalmoo biyuhu ay ka duraarsadaan wa inna minha lamaa yahbitu min khashyati illah kuwa waxaa jira soo dilandilooma iyagoo ilaahay subxaana wa tacaala ka baqaya aayad kalena waxay ahayd haddii qur'aanka aan ku soo dejin lahayn buuraha dushooda low anzalna hada alqur'aana calaa jabal waxaad arki lahayd isagoo dildilaacaya marka dhagxaanta in loo gafa maaha allah subxaana wa tacaala wuxuu ku miaaliy waana mihaalka ugu khatarsan ee aan dul marno in qalbigeenna dhagax lagu miaaliyo qofkana markuu qof uu ka soo taago wuxuu leeyahay ma dhagax baad tahay waxbaa ku geli waayeen xaaladda saddexaad haddii la isku arko iimaanka inuu dacfi uu ku jiro muujinaya waa maxay cibaadada markaad sugi weysid salaadda marka lagu jira maankaagu maqan yahay dhammaanteena sidaa ah qur'aanka marka la aqrinayo aan ku ta'hiirinayn ducada adoo dhoohan baa gacmaha kor u taagaysaa walidaalika sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laa yuqbalu ducaa'un min qalbin ghaafilin laahin xadiidka waa xadiid saxiixa sheekh naasirna uu ku sheegay silsila 549 duco ka soo fushay qalbi dhoohan
isla markaana hawlan oo hawlo kale ku mashquulsan ilaahay ma aqbalo waxaad arkaysaa qofka gacmaha kor u taagaya aan la socon ducadiisa waxaad arkaysaa qof maanta tusbixiisa u wada dhagdhag ku haya meesha uu maray astaghfirullah aanu fahmin waxaad arkaysaa subhanallahi alcilin aanu fahmin cibaadadii wuxuu ka baxayaa meeshii iyadoo aanu dhadhansan xaaladda hadii la isku arkay iimaankeena dacfi buu ku jira xaaladda afaraad cibaadadii inaad ka caajistid oo lugu jiid aad ku tukatid lugu jiid aad xajka aad ku aadid jimcayaashii lagaa waayo dacfi weyn ayaa markaa jira walidaalika allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay munaafiqiinta wuxuu yidhi waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala haddii salaadda ay u istaagaan iyagoo lugaha jiidaya ayay salaaddii aadayaan buu yidhi waana arrin lagu yaqaan qofka munaafiqa ah waxaa laga yaabaa xajkiyaa ku waajibay markaasuu wuxuu leeyahay sanadka dambe la gaaraya sanadka dambe sanadba sanad buu u rahananayaa markuu is yidhaahdo hadda baxna wuxuu leeyahay sanadka dambe markuu 2 sano marayo 3 sano uu marayo 5 sano uu marayo baasaboorku ku aadi lahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala gacanta uu geliyay diyaarna aanu hayn inuu dhaqaaqo ayaa waxaa laga yaabaa in mowdkii markaa u yimaado ninka marmarsiyaha raasanaya lee xajkii lama gaarin waxaa laga yaabaa haddii telefoon loo soo diro la yidhaahdo gurigii dariskeeni ahaa xaaji cabbaas uu lahaa waa beec $1,000 inuu meeshu ka soo bixinayo mataqaana markii isagoo xawaalada ku diraad arkaysaa inta ka horaysana waxaa laga yaabaa inuu ku soo hordhigo 1000 cudur inuu ku soo hordhigaa laga yaabo yiraahdo meeshan bay ka dhacday inta haddaan isku aragna iimaankeena dacfi baa ku jira walidaalika waxay culimmadu ay yidhaahdeen ama rasuulna sal alla alayh wasallam wuxuu yidhi laa yazaalu qawmun yata'akharuun xataa yu'akhirahum allah dad qowm ka tegi maayaan inay dib isu dhigayaan ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagoo dhanba dib u celiyo safka hore adoo u joogaad kan labaad markaad aadaysa adoo arkaya salaaddii jamaacadaad ka daahaysa adoo arkaya in aad tukan kartid sunantii baad ka gaabinaysaa xaaladdaa haddii la isku arko iimaankii hoos buu u dhacay walidaalika waxaa lagu yaqaanaa saxaabatu rasuulillahi sal alla alay slam ama ambiyadiiba ilahay markuu ka hadlay innahum kaanuu yusaaricuuna fi alkhayraat wayadcuunana ragaban warahaban waxay kuwa u tartamo u degdega khayraadka ilaahayna barya waatan aayadda qur-aanka ay leedahay waxyaaba lagu aqoonsan kara waxaa ka mid ah in iimaanka uu dacfi uu ku jiro qofku wuu seexanaya habeenkii subixii buu soo toosaya iyadoo wax yacni problema iyo mushkilad aanay ku iman laakiin waxaa arkaysaa qofkii wejigiisa beddelan 10 daqiiqo qofku wuu qoslaya 10 daqiiqo iimaankiisuu maqan yahay 10 daqiiqo dadkii buu marka u gacan qaadaya 10 daqiiqana wuu xanaaqsan yahay qof shalay aad salaamaysay oo aad xabadka ku hayday baa maanta kaa soo horbaxay salaanta la dhaafaysaa misaajkaaga iyo muudkaaga dhan baa isbeddelaya walidaalika waxaad arkaysaa waxaa nagu badan maanta muudkayga caadi ma aha caadi mihi maalmahan oo dhan waxaa laga yaabaa qofka inuu yidhaahdo kan ahlu diinkan inuu yidhahdo jin baan isaga shakisanahay kan kalena inuu yidhahdo buufis baan isaga shakisanahay oo baranoid baan ahay laakiin wuxuu rasuulullah muxamed sal alla alayh wasallam uu tilmaamay diiqa isaga qofka ku imanaya inuu yahay dacfu liimaan inaad dadka ka didid oo aadan salaanta aadan ka qaadin oo salaantii aadan la raasan oo meeshay fadhiyaan aad ka oradid oo masjid walbana aad tiraahdo masjidkaa ma tegaya 4 nin oo garka dhaadheer baan u nacay masjidka ma tegaya meelaha dumarka isugu yimaada maxaa la naagaha maraha jiidayaan nacay wadaadadan maanta dhan xalaal iyo xaaraam qofka markuu isku arkay iimaankiisa dacfi ku jira maxaa sala allahu alayh wasallam xadiiث uu yidhi mu'minku ya'laf wa yu'laf lahu almu'minu ya'laf wa yu'laf walaa khayra fii man laa ya'laf wa yu'laf mu'minku dadka isagaa raasada wayna soo raasadaan khayrna kuma jiro midka aanan dadka raasan iyagana aanay soo raasan haddaad is aragto adoo dadka ka didsan masaajidii isbaara ay ku dhigan tahay dad qof aad la hadli karti aanay jirin dadkana ay ku necab yihiin oo markaad meesha ka soo baxda la yidhaahdo ninka kan anugu ma jecli hana laga fogeeyo fadhigani uu soo fadhiisan iimaankii dacfi baa ku jira xadiidkan waa xadiid saxiixoo sheekh naasir asilsilo ku sheegay 427 صلى الله عليه وسلم wuxuu tilmaamo oo kale macna saas oo kale oo iimaanka waxa lagu yaqaan sabar iyo dadku la saamaxo hadii khalad laga galo oo aad maanta dhan daba taagan tahay iimaanka dacfi baa ku jira xaaladda lixaad ee muujinaysa iimaanka inuu dacfi ku jiro waxay tahay aayaadkan ilaahiga ah ee lagu dul aqrinayo hadda aan soo tilmaanay inay buuraha dhaqaajin karaan in qofka aanay saamayn waa noo iman doontaa biidin illaahi subxaanahu wa tacaala saxaabatu rasuulillahi sal alla alayh wasalam bal salaf hadi الأمة bisifa caama markaan u hadlo quraanka meesha uu ka taagnaa isii u dhaqaajin jiray xaaladda kale ee aan u gudbinay waxay tahay qofka inuu xuska ilaahay marka uu ka gaabiyo aanu shaqaba aanu ku lahayn allah quraanka markuu ka sheekeynay qaliil munaafiqiintu wuxuu walaa yadkuruuna allaha illa qaliila ilaahay ma xusaan in yar mooyaane
waxaa laga yaabaa inaadan kitaab baadan kala furin waxaa laga yaabaa astaghfirullaahida in ay tahaba dadka mutasawwifada kaliya in marka ninbaa waxaa arkaysaa ninbaa nin u yimid oo maantana astaghfirullah ku haynin suufi baad noqotay buu yidhi waxaa moodaa in dadka ara loogu talagalay tasbiixdii baan u tirsanayn xaaladdaa markaan isku aragno iimaankeenna dacfi buu ku jiraa xaaladda 7 ama 8aad waxay tahay inaadan u caroonin haddii ilaahay subxaana wa tacaala sohdimihiisa laga tallaabo diinka ilaahay haddii meel loogaga dhaco haddaadan u damqanin arrinkaa wuxuu muujinaya iimaanka inuu dacfi ku jiro walidaalika sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay wuxuu yidhi tucradu alfitanu cala alquluub fitanta quluubtaa loo bandhigaa buu yidhi sala allahu calayhi wasalam qalbigii fitno ay ka buuxsato madow buu noqonayaa buu yidhi waa tiimbaraysmaya khayr gelayana ma laha wuxuu waday sala allahu calayh wasalam xadiidka muslim baa wariyay wuxuu yidhi wuxuu gaarayaa qofka heer macruufna aanu faraynin munkarna aanu dadka ka celinaynin labadanu marka ay isugu mid yihiin ilaa wixii hawadiisa waafaqsan mooyaane walidaalika arrinkan markaan arko waxaan soo xusuustaa xaaladahan ku sugannahay waxaa nagu yar dadka meeshaan jooga inaan nahyi aan samayno aan wax iska reebno haddaad aragtid adoo ku faraxsan magaalada habeenkii marka laga tumanayo oo fanaanada meelaha laga soo kiraysto haddii caadi ay ku tahay masjidkaaga aad ku jirtid hooyo sharaf lahoo meeshaan fadhidana gabadheeda inay aadda aanay u damqanin aabba sharaf leh in ilmihiisa aanu ka celin haddaad aragtid innagoo telefoonnada isku diranayno booking u samaynayna ninkii noo heesi lahaa haddaad aragtid marka meelaha la isugu yimaado muddadayaadka xafalaadka fisqiga iyo fushxiga lagu wado aynan iska celin ha noqoto tii goodbye-da gabadha lagu sagootinayay ha noqoto tii welcome to ahayd lagu keenayay ha noqoto tii halloweenka meesha la isugu keenayay ha noqoto tii festivaliska oo markaa la samaynayo ama valentines day ama waxaad doonta ku magacaabo haddaad aragtid arrimahaas oo dhan caadi noo noqdaan oo aadna tiraahid waa caadiyos wax mushkilada ma leh haddaad tiraahid iimaankaaga dacfi baa ku jira maxaa yeele sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa laa yaqdab ma caroon jirin ilaa ida intuhikat xurumaatullah ilaahay xurumaadkiisa marka meesha looga dhaco wejigiisaa laga garan jiray wejigiisaa markaa guduud noqon jiray allaha fii iimaanikum ilahay inaan ugaga baqno wey allah subxaana wa tacaala wuuna weydiinanaa yowma alqiyaama meel kastoo aan joogno haddii dhulka aan deggannahay iyo gobolka aan deggannahay magaalada meesha aan ka deggannahay xumi haddii ay ka dhacdo aynan ka damqan oo inaan ka dhiidhiyin aynaan dhihin ha laga joogo allah subxaana wa tacala wuuna weydiin doonaa walidaalika xadiidkan dhegayso waa xadiid khatartiisa leh wuxuu yidhi sala allahu calayh wasallam waa xadiid saxiixa oo saxiixuljaamica uu ku wariyey sheekh naasir ayuu ku tasxiixiyey wuxuu leeyahay idaa cumilat alkhati'atu fi اlardi كان كمن شهدها أو كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كمن غاب عنها حميها دي دولك لغو سمايو قفكي ماشا جوغا لكن كهلو يراد وركا استاغا وروحان وحمية كجوغ سدا قفكا وحو لميدا قفكا مقن أوكل إليه سبحانه وتعالى وقمن ماي لكن ومن غاب عنها قفكي استاغا كم مقن رالي كالنقضة أو مركا لغا شاكي كرالي النقضة وحو لمن نقونا يقف محي استاغا ماشا جوغا أوكل xumida aad ka maqan tahay haddii subixii lagaaga sheekeeyo ama xalay cajaladii laga duubay aad tiraahdo hallii keena aan marsada ama allahu mustacaan arooskii fisqiga uu ka dhacay gabdhaha ay dalbadaan cajaladii ay yidhaahdaan waxaan u baahanahay heble say u ciyaaraysa inaan arko amaba fannaankii xalal keenay heesihiisaan soo ceshanay haddaad tiraahid adna meeshii aad fadhidid kaana kaman shahidaha xadiidkan adigu meel kale wad waa kaayo waa xadiid saxiixe xadiidkan wuxuu muujinayaa allah subxaana wa tacaala marka inuu na weydiin doono qodobka waa qodobka 8aad ee muujinaya iimaanka inuu dacfi ku jiro waxyaabaha dacfi muujinaya iimaanka inuu ku jiro waxa muujinaya qodobka 9aad qofku inuu jeclaado inuu dadka ka dhex muuqdo arrinkaana wuxuu isugu u qaybsamayaa dhowr arrimood koow wuxuu jecel yahay inuu madax noqdo in isaga laga dambeeyo hadduu kursiga isaga waayana nin isaga xigaalkiisu la rabaa meeshii maanta dhan waxaa laga yaabaa majliska uu fadhiyo inuu kaaga sheekeeyo un keliya ninka murashaxa ka ah tolka isaga uu ka dhashay hadduu isaga waayo kursiga ninka hadalka kuu wada nin kaluu rabaa xigaalkiisa inuu meesha u galo haddaad aragtid in hawshaa keliya dadka ay ku howlayihin iimaanka dacfi baa ku jira walidaalika wuxuu uhi sala allahu calayh wasalam innakum sataxrisuuna cala alimaara kursiga aad baad u raadin doontaan buu yidhi laakiin qoomamay noqon doontaa markaasuu wuxuu yidhi mid nuujisaa nicmo lahaatay waxaana baas lahaaday mid goysa oo naas goysa ah بمعنى مر الفسير صلى الله عليه وسلم وحيري أولها وحال الصعدة يعني لما مركي الفسير وحير هذين إلا كرسي مال بالله الصعدة جاه بالله الصعدة شرف بالله الصعدة وقدام بيننا وحال لي ريه بل أنت أن هيستي
dil iyo eryasho iyo isdabagal iyo waxaasaa ka dambeeya rasuul sallallahu alayhi wasallam macnaha markuu tilmaamayay walidaalika wuxuu yidhi in shi'tum anba'tukum can alimaarati haddaad doontaan waa idiin sheegaya dhegaysta wuxuu sala allahu alayhi wasallam xadiidka tabaraani baa wari saxiixuljaamic uu ku soo arooray awalkeeda waa isqabqabsasho marxalada labaad ee madaxtinimada wuu yidhi waa qoomamo marxalada saddexaad wuxuu yidhi waa cadaab yowma alqiyaama ilaa qofkii cadaalad sameeya maahan waxyaabaha mawduucan soo hosgelay waxaa ka mid a haddaad aragtid mar meel isugu yimaado fagaaraha dadku markay fadhiistaan inaad maanta dhan adiga inaad hadashid arabtid qofkii hadla waxaa leedahay sug waxba ma ogide takhasus kastoo la gala adaa ka hadlaya engineering baa la galaya adaa ka hadlaya medicine baa la galaya adaa ka hadlaya wax kastaba waxaa tahay nin faylasuufoo qaamuus soconaya taa adaa hadlaya sheeko taada aan ahayn mooyaane meesha inay ka socoto ma jeclid waa ku amar taagleynaysaa iimaankaaga dacfi ku jira waxaana laga fahmaya xadiidu rasuulillahi sal alla alayh wasalam wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam iska ilaali ittaquu hadihi almadaabix bimacna almaxaariib maxaariibtan waxay ku fasiri jireen waa meesha suduur almajaalis majaalista fagaarayaasha la isugu yimaado qofka inuu keligii uun wax ka sheego waxyaabaha lagu aqoonsanaya waxaa ka mid a qofka markuu jecel yahay inaad dadka u istaagaan marka meel la yimaado ilaan waxaa kugu jira dacfi aad dareemaysid waxaad rabtaa dadkoo dhan inay ku istaagaan adiga laguu sabciyo haddaan saa lagu dhihina noocan ma waxaa laga yaabaa inaad fur ka tuuratid xaaladda waxaa lagu aqoonsadaa iimaanka inuu dacfi uu ku jiro waxyaabaha lagu aqoonsada waxaa ka mid a qodobka tobnaad gacan adayg iyo lixjeclaan iyo ku dhegitaan iyo gacantaada oo aadan jaabka aadan u dirayn ilaa allaahumma in feer lagugu dhufto mooyaane si kale aad ku dhaqaaqaysid ma laha xaaladdaa marka la ysku arka dacfi baa iimaanka ku jira wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam laa yajtamicu ashuxu waaliimaanu fii qalbi cabdin abada bukhli iyo iimaan lagama yaabo qalbi muumin inay isugu tagaan xadiidkaa waxaa wariyey nasaa'iyo saxiixuljaamicu ku soo oro 2678 mar raba lagama yaabo in la isku geeyo walidaalika culimmada waxay sheegaan waxaa jira ama xadiidka rasuulka sal allah alayh wasallam wuxuu yidhi iyaakum washuxa war iska ilaaliya bukhliga lexjeclada iska ilaaliya dadkii idinka horreeyey taasaa halaagtay bukhli buu faray inay gacanta maalka ku dhegaan way ku dhegeen qaraabada inay gooyaan buu faray way gooyeen kadibna wuxuu faray inay fujuur la yimaadaan fujuur bay ku dhaceen buri saddex arrimood buu markaa mariyey xadiidkan waxaa laga yaabaa in laga fahmo saddexda macno oo bakhiilka iyo la'iimka iyo shaxiixa u dhexeeya bakhiilka diyaar umaha inuu wax bixiyo la'iimka inuu isaga wax bixiyo diyaar uma aha laakiin maalka dadkana wuu rabaa shaxiixa inuu wax bixiyo ma rabo maalka dadkana wuu rabaa qof kale jeebkiisa inay ka baxdana ma jecla saddexdaba xadiidkaa lagu hawaa maraaxisha saddexdaa shaxiixa waa tan wuxuu leeyahay kow amarahum bilbukhli fabakhiluu tiisuu ku dhegay wa amarahum bilqatiicati dadka kale in la siiyuu diiday wa amarahum bilfujuuri dad uu hor taagan yahay waa macaanida markaa laga fahmi kara xadiidka walidaalika allah subxaanaه wa tacala wuxuu haa antum haؤulaa tudcauna litunfiquu fii sabiili اllahi faminkum man yabkhal war waxaa laydinkugu yeeraya waa infaaq fii sabiili اllah walidaalika aayaddii qur'aanka maxay tihi suurati اlbaqara الشayطaan yacidukum اlfaqr marka leey wax bixiya shaydaan baa wuxuu idin leeyay war cayr baad noqonaysaa ka istaag marka arrin uu shaydaan uu ka talinayo waxaa arrinkaa daliil uu yahay inuu meesha iimaan aanu jirin iimaankuna marka uu dacfi uu ku jiro arrinka koo iyo tobnaad ee lagu aqoonsanaya iimaanka inuu dacfi ku jiro waxaa ka mid a qofka wuxuusan samaynayn inuu yidhahdo waan samaynayaa qur'aanka aayaddii waxay ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun waxaydan samaynayn maxaa u leedihin waan samayn doonnaa qodobka koo iyo tobnaad waa kaa haddii laysku arko aan isku aragno in ballanteennu ay badan tahay ballanta laga sheegaya dadka IBM-ta loo yaqaan in sha allah buu ku leeyahay soo noqo bukra haddana maa calay saddexdaa buu isu kaa raacinaya haddaad is aragtid inaada ballantii aadan ka soo baxayn in ballan walbood gashid aad guub yeelaysid markaad aragtid iimaankaaga dacfi baa ku jira qodobka 12aad qofka inuu ku farxo dhibka ku yimaado walaalihii muslimiinta ah muslimiin baa meel lagu jabiyey dad baa la eryaday dad baa dhib ku yimid dunidan ilaahay subxaanaه wa tacaala uu ballaariyey dacladeeda iyo guudkeedaba dad baa lagu gumaadayaa caadaldarraa ka socota insaafkii baa laga tegey haddaad aragta arrinkaa inaad u damqanaynin iimaankaaga dacfi baa ku jira waxyaabaha muujinaya waxaa ka mid a dacfi inuu jiro qofka markuu dembiga uu samaynayo ama ficil markuu samaynayo wuxuu ka fiirinayaa un keliya ma dembi baa iiga imanaya mise dembi maaha waana su-aasha culammada ku badan wuxuu ku leeyahay sheekhow masaladan iyada ah
ما كراهية يعني ديار ما إنه كويديو qof horta iimaanaya oo ku weydiinaya mala maxaa la igaga baahan yahay horta wuxuu weydiinaya dambi inuu ku dhaco in kale bas markaas wuxuu ku weydiinaya haddaad tiraahid arrinkan ma banaan wuxuu ku leeyahay ma karaahiya waa karaahiya markaad tiraahdo karaahiyadeedaas ma badan tahay mise waa yar tahay haddii qofku uu gaaro heer dunuubtu ay la sahlan tahay uu gaaro heer markii dambi uu galayo uu ka yiraahdo dambi uusan ku soo gaarin kaliya laa liya walaa calayya masalada oo kale arrintan dibkeeda ay leedahay ولذلك صلى الله عليه وسلم وحيري فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام قفكي كدع وحيابها لبدا سهدين ودحي حلال إيه حرام بكدع بيريون في السمامة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حديث عوكيري واحد عدونت يوم القيامة لا يعلمن أقواما من أمتي وحن أقان دونا بيردد مردد كمدا وإيمان دونا يوم القيامة وعلى إيمان دونا جبال تهامة بورها تهامة عمل لأك oo aad u cadaan badan yani heerka ay gaarsiisan yihiin laakiin wuxuu yiri fayaj'alahu Allahu haba'an manthura laakiin ilaahay wuxuu ka dhigay acmaashaas oo dhan mina wax ka soo qaad lahayn rasuulullah sallallahu alayhi wasallam markuu arrinka uu yiri kadib saxaabada rasuulullah sallallahu alayhi wasallam baa istaagay wuxuu yiri thawban wuxuu yiri ya rasuulallah sifhum lana hulhum lana aw dulhum lama fi riwayatin rasuulullah nasifa dadkaas ina ogaanaan rabnaa nin acmaal fara badan la iman doona yawm alqiyaamah أعماشيسنا لديه دونا وحكا سوقات مله يا رسول الله من هم أرن سهلا ما مركز وحيري صلى الله عليه وسلم مروا هلا وحيري ضدك وولالهم بيري هرقين دوبكين إليهم بيري ليل كساء أتكتان وأتكذان وصلاتك ما تكتو لكن بربلامك هاي ساي محويا مركز محارنت إلهي إليك للنقضان بين وآبيالين مركز كلقيا حميد الضوم صميا guriga markuu joogo waxa laga yaabaa dadka markuu ag joogo inuu yiraahdo naga wareejiye qanaadka kan naaqawan baa soo galeysay kaligi markuu yahay uu shito dadka markuu ag joogo waxa laga yaabaa inuu yiraahdo naga daayo waa xaraam laakiin markuu jaanis la inuu sii wato haddaa is aragtid inaad isdiwaajiye leedahay dadkana waji aad kula joogtid marka gaar u joogtidna waji kale aad leedahay iimaanka dacfi baa ku jira waana arrin dhibaatadeeda leh oo markaan u badannahay walidaalika masaladan iyada mas'ala muhiimadeed u baahan weey waana muhiim in lagu baraarugo arrimahaas oo kale arrinka kale aan gudbay waxay tahay maxay intaana ka gudbin sallallahu alayhi wasallam arrinka markuu tilmaamay wuxuu yiri qofka muuminka ah maruu tilmaamay xaal almunaafiq marka laga hadlay ibn mas'uud baan ula jeedaa wuxuu yiri qofka muuminka ah dambi markuu ku dhacayo wuxuu arkaa in buur ay hoos fadhiyo ay saa ugu soo deganayso laakiin qofka munaafiqa waxaad moodaa buu yiri tuqsisa wajiga umar saa iska yiri wax weyn lama ah hadii dambi yar markuu ka dhacayo aadan wax weyn aadan ka dhigan oo noocan ma aadan hadigii salafkii aadan la maro aadan dhihin allah ilaa maanta meel xun baan aaday wax xun baa iga dhacay haddaad arrinka aadan u damqon oo saad uga shalayn arrinka waa khatar ku jira arrinka fariitobnaad wuxuu yahay macruufka wax kastoo wanaagsan oo la liido diinteenana ma sheegin in shay macruuf la liido macruufku waxa la jeedaa amal yar hafudaysan meesha aad fadhiday haddaad aragtid kursiga aad ku fadhiday nin muslim walaalka meesha soo mari lahaa inuu ciriirku istaago leex hafudaysan ونن يسين أدجر هل دونتين صلى الله عليه وسلم حديث وحوك لا تحقرن من المعروف شيئا وناقا سميني سهي ريسن إله أتكدك تقف مسلم ولالك وراب دونا أول كيس بياد وقشبتين إله أرنك أول نقضاء قف مسلم ولالك وكاسهر بحوجي فرفران أتكل كلنتين انت باكو فلان حديث وحكوسو أراري نمبا وحو صامري وضو وحو صامري لان geedeed oo saa marka meesha u dhaxtaal wadada dusheeda marka wasiir maanta waan ka leexinaa bar uu ka leexiyay fa dakhala aljanna jannu ku galay sallallahu alayhi wasallam haditha muslim baa wariyay walidalika in ma'ruufka la liido shaydaanka ayaa ku farxaya wuxuu sallallahu alayhi wasallam hadith waxa uu ku yiri shaydaanka waa uu ka qoostay an yu'bada fi jaziratikum hadhihi uu ka qoostay in lagu caabudo وفي روايه واحد ايس وفي روايه ايس وان اسكو معنى وكقوستي لكنه رضي بالأعمال ما تحقرون رضي من الأعمال بما تحقرون أو كما قال صلى الله عليه وسلم وحاس كفلا عملك كان لي ليسان هذا مركو قفك وصوغل السلام عليكم مركو يراهدهم وعليكم السلام ورحمة الله إذا مركا كتك أنت سشيطان كفلا لبرقوا السنة تحيد المسجد إنك كهرتد أنت سكفلا خير مال وهي أتك جابد أنت سكفلا أنت وتفسيرك كواد علماء إيسارين رضي من الأعمال ما تحقرون أما با إن لا يراهدوا شيء وقفك فضيستو دنبي آنو كدقان معاك معنى هذا وي وقاموسك مركا نوغو جرتا رضي من الأعمال ما تحقرون أرنك شني تبنات قفك إنو سلف القلين قضايا المسلمين تيوها روحة أهيد
inuusan u damqan laakiin tan waa maxay cala alaqal ducaa loo baahan yahay qof muslimo walaalkaa dhib ku yimid ducaa lagaaga baahan yahay ummad baa dhib haysata ducaa lagaaga baahan yahay laakiin haddii aadan kala jeclayn keliya aad u damqanaysid tan adiga ku taabato tolkaaga soo gaarta mooyaane wax kale aanay ku xisaabsanayn iimaanka dacfi baa ku jira walidaalika sala allah alay waslm xadiis waxa uu ku yidhi ina almu'mina min ahli اliimaani bimanzilati alra'si min aljasad qofka mu'minka dadka mu'miniinta wuxuu ugu jiraa booska madaxa jirka ugu jiro oo kaliya ugu jira oo kale ya'lamu almu'minu liahli اliimaani kama ya'lamu aljasadu lima fi الra's qofka mu'minka wuu u damqadaa xanuun buu dareemaa dadka mu'miniinta marka wax soo gaaraan sida madaxa uu ku xanuunay jirka meel ka mida markay ku xanuunayso uu ku xanuunayo meel on farta markay ku xanuunayso madaxa uu soo gelaya lugtaa ku xanuunayso madaxa ku xanuunaya neerfahooda way isku xiran yihiin adna saasoo kale lagaaga baahan yahay haddii qadaaya almuslimiin oo meelaha ka dhacaya oo akhbaartu aan ka maqlno aanayna dhaqaajin arrinkaa markaa wuxuu muujinaya dacfi inuu jiro waxyaabaha dacfiga muujinaya waxaa ka mid a dadka muslimiinta walaalahoo kala daata laba nin oo weligood soo wada socon jiray laba ruux oo weligood wada joogi jiray ayaa waxaa arkaysaa maalin inay kala dideen hebelna xagguu ka baxayaan hebel xaggaasuu ka baxaya infisaam curu اlukhuwa markay timaado waxau muujinaya dacfu اlukhuwa dacfu wuxuu muujinaya aliimaan xadiid baa muujinaya wuxuu leeyahay maa tawaadda اثnaani fi اllahi caza wajal aw fi اlislaami fayufariqu baynahuma aw bidanb awalu danbi fayufariqu baynahuma awalu danb wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laba ruux oo ilaahay dartii isku jeclaaday markay kala tegayaan waxaa ay ku kala tagaan dembi midkood uu galay riwaayaadka qaarkood aa muujinaya waxaa laga yaaba inaad tiraa hebel waxaan ka sameeyey aniga ma aqaan intaasaan xiriir lahayn saaxiib baan ahayn khayrkaan isku sheegi jirnay meelaha khayraadkaan isu bahaysan jirnay aan tegi jirnay wax kastaa naga dhexayn jira laakiin ninkaa waxaan arkay laga bilaaba maalinta inuu salaantii la garab marayo gabar baa waxay le walaashay muslimadda ah intaasaan wada dhaqmi jirno khayr baa naga dhexeeyey laakiin maanta ma garanayo waxaan ka sameeyey way oraday waxaa loo baahay salafka waxaa lagu yaqaanaa inuu isku laabto qofku yidhahdo yaa dembi galay midkood baa dembiga riwaayaadka qaarkood waxay leeyahay bidanbin yuxdiثuhu axaduhumaa labadooda mid ka mida dembi uu galay baa keeni kara labada qofood inay kala tegin dembi markuu yimaadana iimaankii baa dhaawacmay iimaanka markuu dhaawacmana dacfi maa meesha yimid way macnaheeda waa muhiim marka walidaalika saxaabatu rasuulillah salaf ulumma waxaa lagu yaqaan wuxuu leeyahay haddii aan dareemo daabadeeda inaanay dhaqaaqaynin waa ismuraajiciin jiray waxaan ogaan jiray buu yidhi inuu dembi inaan galay marka arrin yar markuu nagu adkaaday inuu dembi jiro ogow dembina hadduu meesha jiro dacfi baa jira arrin kale 17aad wuxuu yahay qofka inuusan dareemin mas'uuliyadda saaran ee diinkan ka saaran waxaad mooddaa khayraadka dadka loo sheegay inay keliya u qaabilsan yihiin afar wadaadoo cimaamad soo qaata waxaad mooddaa inay u qaabilsan yihiin keliya maraakiista islaamiga ah laakiin dadkeenan averageka meeshan fadhiya ee muslimiinta ah inaanan u dhaqaaqaynin haddii hada diin yaa kuu diiday inaad qaadatid kutab yar oo luqadda dadka ay fahmayaan ku qoran inaad u geyso guriga aad garaacdo tiraad kitaabkan qaado islaamku ka hadlaya maxaa kuu diida luqadda ilaahay subxaana wa tacaala ku baray inaad u adeegsid inaad diinka ilahay ku faafidiso aragtay in waxaan dhan shaqadaada aanay ahayn saxaabatu rasulillahi sal alla alay waslam arag atufayl ibn camr addowsay hada asaxaabiy inta u dhexaysa arag markuu islaamay markuu dacwada u dhaqaaqay muddo yar baa u dhexaysa hamaama ibn athaal waxaa la sheegaa ninka kan wuxuu ahaa ahluyamaama ayuu madax u ahaa waa la soo taxaabay rasuulkaa loo keenay kadibna geed baa lagu xiray kadibna islaamkii baa loo bandhigay ilaahay subxaana wa tacaala baa nuurkii markaa qalbigiisa ku tuuray kadibna markii ugu horraysay uu maka aado cumruu aaday cumar markuu aaday kadib buu kufaaru quraysh khudba u jeediyey u la hadlo dhammaantood wuxuu yidhi dhegaysta laa yasilukum xabbatu xinda min alyamaama xataa ya'dana fiiha rasuulu llah sal alla alيh wasalam idin soo gaari mayso buu yidhi xabba sarreena oo idinkaga imaan jirtay xaggaa iyo meesha idinkaga imaan jirtay ilaa rasuulka uu ka idma buu yidhi laga bilaabo saacaddan bur islaamka idinku tadbiiqinaya ninka kan waa la soo qabtay shalaa islaam loo sheegay maalinta kale wuu cumraysay maalinta kale wuxuu taagan yahay darajo ah uu leeyahay islaamkaan ka turjumaya waa mas-uuliyadda loo baahan yahay waana ha la yaabin in la yidhahdo dadkaas waxay mutaysteen janna fulaan mubashar biljanna isagoo dhulka soconaya in lagu yidhahdo hebel waa iimaan soconaya ha la yaabin maxaa yeele islaamku u damqan jiray waxaa laga yaabaa muxaadaraadkan meesha lagu sheegay inay tahay un keliya dhegtanna geli tan kalena ka bixi laakiin qofka meesha uu kaga tago laakiin markii notiska qofka uu wato qofka muslimka kale aanu gaarin uu la daba galo markuu telefoon u diru yidhahdo khayrkaas baa jira darsiga masjidka markaa ku soo dhegaystay aad sii socotid intaana aadan fadhiisanan sidii mashiinkii ama shinnidii oo kale maantana aad u shaqayso aadan istaagin ilaahay subxaana wa tacaala marka uu ku gargaaraya waxyaabaha
muujinaya iimaanka inuu dacfi ku jira waxaa ka mid a qofka markay mushkilad yar ay timaado wuu argagaxayaa khalaas waa laysa soo galay buu leeyahy annagoo dhan baa arrintaa ka wada siman tartacidu faraa'isu isagoo dhan baa gariiraya wuu jaranaya arrinka dhan waa isbeddelaya iimaan kale u jeesanaya shalay meeshan buu jeeda 180 buu jaray xaggan u jeesanaya haddaad aragtid mas'alo yar ama dhacdo yar iyo mushkilad yar markay timaado inay markiiba ku rogayso meel kale aad u socotid iimaankeenna dacfi baa ku jira ogow sala allahu calayh wasalam xadiid buu ku tilmaamay macno saasoo kalea qofka mu'minkaa waxyaabaha lagu yaqaan in markaa qof sugan uu yahay waxyaabaha lagu yaqaan dacfu liimaanka waxaa ka mid a qodobka 19aad qofka inuu maantanan doodo culimmadu waxay dhihiin jidaal caqiim waa dood aan miran aanan lahayn maanta dhan wuu doodaya wuxuu ku doodaya ma taqaana qaar baa wuxuu ku leeyahay kaalay aan doodna waxay ka mid tahay mufradaadka nagu soo biiray marka dagaalladu ay dhaceen kaalay aan doodna kaalay aan muranna ah qolka doodda qolka dadkii ishardinayay qolkii hebel lagu radinayay waa tabaaltooga nooga buuxda aan doodna sala allahu calayh wasalam xadiid uu ku yidhi dad ma lumaan buu yidhi hanuun kadib ilaa waxaa la siiya aljadal dood baa ilahi subxana wa tacala ku ibtileeya xadiid kalena wuxuu muujinayay sal allah alay wasalam inuu yidhi ana zaciimun bibaytin fii rabati aljanna waxaan u kafaala qaadayaa guri jannada ku yaala liman taraka almiraa'a wahuwa muxiq wain kaana muxiqa qofka ka taga doodda iyo iska hadalka xataa habdhaduumud bimacnaa heer xataa haddaad joogtid aad runtii aad muxiq u tahay inaad dooddii aad geshid haddaad ka tegtid ilahay dartii aad uga tegtid janna lagu ballan qaada jannada waxay ku xihan tahay meeshan aad ka nacnac leedahay dhagdhagtan jooji intaasaa jannadaada xigtaa haddaad is aragtid inaad doodaha aad xiisaynaysid dadka qaarkiina way doodaan waxaa laga yaabaa waa ninkii caalimkaasu yidhi yujaadilu lidaati aljidaal waa la doodaa buu maqlo wuu doodaya ma oga teemaha uu ka duulaya ama ajandaha uu ka hadlayo ninkan hor fadhiya waxay isku haystaan ma oga waa murmaya maanta dhan wuxuu rabaa meeshaan shidaynaa buu kule waa shidaynaa arrinkaa marka wuxuu muujinayaa dacfu aliimaan waxyaaba dacfu aliimaan muujinaya waxaa ka mid a qofka maanta dhan inuu adduunyada mooyaane wax kaleba aanu raadin maanta dhan min asabax lileyl shilin buu raadinaya qaamuuskiisa kuma jirto kumaba jiraba hal ragco ilaahay loo tukado jadwalkiisa yoomigaa kuma jiro hal safxo oo qur'aan ilaahay loola fariisto taymihiisoo dhan min alawal ila alaakhir 24 saaca calaa madaari saaca kuma jirto hal maro ilahay subxana wa taala istakfira loo istaago kuma jirto ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد حسد إيه إنه قفك وحاسد ونقضه إلا المحايا لمركز الدنيا الرادين يسرق بقى يسحقان إنسان ذلك مركز يسحقتان حاجة حاسد بقى إيمانية لبضا أنا قلبي قمومك يسقمتكم وحيابها قضب كو إلا بعد تمنى وقضب خطيرة قضب كان نوح وقار وياهي ذلك متعلمين تا مثقفين تا قفك مركو هلا إن أذى الكيسة بقى لو أركن آية دي حديث وفريا ما أنت دن قال فلان جريد فلان با وحي تري جريد فلان با وحي تري مفكر كيف فلان با وحي يري آية دي حديث بالغم هاي ما أنت دن وهلا وحلا غيابا 5 ساعات 6 ساعات منك ما شافني أما ما شاف عن فدينه هو أركب ثقافة إيه وحيابان تنوير كيكون مجعابان أما يكون مجعابان البحني ماذا يكون مع إن لو أركب ما أنت اللي قال فلان بايري آية دي حديث بان الوهيد هدو حديث كان هو ضعيف هدي ضعيف لله نوح اللي محله ضعيفي هاركا مركو قفك وقاره وحد وقاتا إيمانك ضعفي باكجرة قضبك لبي لو تنادوا وياه قفك إنو اهتمام قارة سي نفس الديس محوعني لها محو لها ماشو دقي لها وحمان تنكون مشكول سنة كماليات كضروريات كمان ضروريات ده واحد داد ويريد قفك ودي مريض كماليات ده واحد داد هشي هداد هلين وحوين أنا أهين كماليات كون مشكول سنة لبا إلا باتن قضب وأما والله باتن إلا 22 قضب بان ماشي كشغل هدان اسكو أركام هذا اسكو أركتد واحد وقاتا إيمان كان ضعف كجري إيمان كدو ضعف كجري أسباب محا كان مركب إن ضعف إن هاركا ونلقى محا كان إيمان كم محا هوصل دقي وحيابا هوصل دقي وحا كم ذكو قفكي أو كفك أجواء ذي إيمانك أهي ما لها إيمانك الله هايو hadda waxaan dareemaynaa markaan meelaha kale isugu nimaadno oo culimadu noo hor fariistaan kelmad khayr ay noo sheegaan adoo aadan dareemayn ba iimaanka kor u sii kacaya maxaa yeelay waxaad ka qoomameynaysaa khaladaadka aad gashay khayr aadan sameeyna waa tamaniyaysaa waxaad ugu qaltaagaysaa waxa leedahay mar uun jaanis ma heli doona aan sameeyo iimaanku uu sii kacaya muddo markaad moogaatina hoos buu sii daadagaya iimaankii
الأجواء الإيمانية أو اللي قفوا هذا ماشى خير كالوها أيا كان إيمانك إنه ضعيف ونقضه. الله سبحانه وتعالى القرآن يقول ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ما نيكسجن ميان يكدوان قال يا مؤمنين تقلوب تودين خشوعه أو قلوب تود أنا أنجين أو أنا لم نقندتك إياه كهر يهودي نصارى مدة مركا يكون ديراتي هاس كحريق فطال عليهم الأمد بمعنى مدة دورة أو يعني القياس كريم بسور خير كي كديرات ولذلك يقول لي أحد الصحابة أيضا مركا يسود دقيسي مركا لنا عنانني يعني مركي أن إسلامي مركا عنانتن أن نوتمن إن يربى ودحيسي قال وحي ليهن مركو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاريوده iyo noocan ma baad aan dacfiga markaan daran in yarba u dhaxayso waa noo iman doonta mas'ala saas oo kala ah oo uu tilmaamayaan al-qudwa salih markaan u gudubno hadii marka arrinka marka wuxuu muujinayaa al-ibtiaad an al-wa'd iimaaniya hadii laga waayo meelaha khayrka ah iimaanku daciif buu noqonayaa saadartii waa inaad yeelatid maalin shaqo kastood leedahay masjidka aad ku xiranta waa inaad yeelatid mawsim khayri oo dadka marka isugu yimaadaan waa inaan yeelano si iimaanka marka u kordho qodobka labaad ee sabab u noqday in iimaanku uu daciif u noqdo al-qudwa salih qofka kan ku dayda maba lahaba kaligiisa socda isaga sheekh isku ah kitaabu kala furay masalada meeshu doon u wadaya isaga sheekh isku ah wuxuu leeyahay diinka kan waa isku mid isku soo duudub waa ilaahay ka cabso kadibna aqliga iyo diinka way iswadaan khalaas meesha soo taaganta fadwadiisa qowdkii markuu al-qudwa salih uu waayo dacfi buu soo galay ilaa waxaan u baahanahay qofna yiraahdo waad khaldanteen waa saxsantihiin nadiira geliya naceliya nayiraahdo hore u dhaqaaqan u baahana tii hadii la waana dacfi ma maashi yimid saxaabada rasuulullah sallallahu alayhi wasallam waxay leeyihiin lama tuwfi rasuulullah sallallahu alayhi wasallam rasuulka markuu geeriyooday oo la aasay oo la xabaalay qulubteena ayaan inkirnay waxay ula jeedaan qulubteena waxba iska bedelay waxay muujinaysaa waana saxaabo diinka ogeydeen baa lagu qufay khayrka ogeydeen baa loo sheegay jihaadka ogeydeen bay taagnaayeen rasuulka waligood ma adfaaruqin ومع ذلك وحي لمركو رسولك جيريد وحباس كي يبدل ولذلك قاركود مركي سفينة وحي ليهن كالغنم في الليلة الشاتية المطيرة واحد مودا سيدي أكل اللمان أكل هبابين واحد مودا أري داقيا هبين مركا شتاء ودره وقبو ودره رامنا ودعيو سيدي مد جيسكي وستاغيسو مد كلا وغير ديرانيسو ساسو كلا نقدم بي صلى الله عليه وسلم مركي ودجيريو ذا كدب صوبت السدحات قفك العلم الشرعي إنه هرتك ديراد ضعف الإيمان بموجنية اللي هذا وحن كان لنا أجواء إيمانية وما حسيد ما يشان وكل المنتديات كان ليسوا إيمان لكن علم الشرعي مركو كديراده أقرنت كتب السلف مركو كديراده أو نبر لها سجنان شهر لغو سجنانه إيمان كإله دين كإله لغو سجنانه الإيمان بالله ودين الله نبر يا هدان كديرانه ضعف ما يش إيمانية ولذلك كتبت علماء آيات وشيء جنا واحد كمذا كتب ابن القيم الجوزية كتبت ابن رجب يوحي لمذا قفكنا ويرايا وحيابا فكري آديات ويرايا محالا كلما كتبت السلف كتراث قفك وكل حرية إلهي سبحانه وتعالى إيمان كسو بركانيا ولذلك وحيدي جرين أهل الحديث هم أهل الرسول وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا أهل الحديث كعد أركيسان وأهل كي رسولك هدانا إساقي لجوغين أنفاسيسي وحي أفكيسا كصوب بحي لجوغين بيلان أرنك أفراد قفك runtii sabab u noqon kara waa maxay isagoo ku nool ama bajooga meel macaasud ay ku badan tahay qofka marka uu fariisto meel midkan uu rasuulka uu lacnadayo midkan diinta wax ka sheegayo kan uu sigaar uu ku daminayo kan hortiisa uu ku qayilayo mid wuxuu doon uu ku sheegay markuu joogo qalbigiisa dhan waa ta'fiir buu galay isagoo dhan baa isbedelay maxaad u malaynaysaa dadkeenan meesha degan oo idaacadii aanay lisaalixi diin aan ahayn telefisiyoonkii aanu ahayn mid diin ka sheekeynay joornaalkii wax qaaqawan ay ku masawiran yihiin waxaad maqlaysay islaam wax laga sheegay uu yahay ninka geeskaaga jooga aan lagu ogeyn iimaankii wax intaasoo dhan markay isugu kaataan iimaanka hoos buu galaya walidaalika waan ognahay dadkeenan meesha jooga iyo dadka afrika jooga u dhow meelaha aadaanku uu ka baxo iyo waddamada khayrka lagu hayo farqi weyn noo dhexeeya heer waxaan gaarnay marka la addimo xitaa aan naxno oo qofku yidhaahdo ma adin kor loo qaado xataa aan maqlin heerka marka la gaaro ama xaaladda marka lagu sugnaado iimaanka wuxuu hoos buu u dhacaya waana asbaabta keenta walidaalika sallallahu alayhi wasallam macaani fara badan markuu baraarujiyey waxaa kaloo sabab u noqon kara qofka adduunyada markuu israaciyo sallallahu alayhi wasallam xadiis waxa uu ku yiri xadiidka wuxuu ahaa
وحديث صلى الله عليه وسلم وكسر حكى الله رب العالمين حديث القدسي لغو مغعابا إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مالك وحان أسود الجنة صلاة إن لغو أوغو زكاة لغو بحية ولو كان لابن آدم واد ابن آدم كهدون لها وادي رواية كقاركود والذهب بيموجنا يعني ميت كلا إن لغو درو جعلان لها لبا هدون لها مسدحات بوهن قلتاقي لها مركز سيري صلى الله عليه وسلم قفك بن آدم كأه الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لا ابتسم مبوحي إلا التراب مويان حديث صحيح الجامع مركز كسو أرارو وحيابها إيمانك وصل لك أسبابتك أنت وحا كمذا قفك إسوه كو مشغولة مالكي إيا زوجدي حاسسكي إيا مالكي إيا محستي إيا أولادي هولها سوكال قفك مركو كو مشغولة إيمانك وصل بودعيا حديث بان كسو كوبي صلى الله عليه وسلم وصحيحة حديث كوحو لي صحيح الجامع وكسو أرار كون سقال بغلي سقاشن والنمبر كيسو واسدة الولد محزنة مجبنة مجهلة مبخلة بيقول صلى الله عليه وسلم المها أديك هذا الشيء محزنة مروق بيكو كانا مجبنة فلاني ما يكوكو بيران مجهلة جاهلي ما يكوكو بيران مبخلة قعنا ذيك بيكو بدان أفرتا بيقول صلى الله عليه وسلم حديث وحديث صحيح هذا نبح مجبنة أما أنكب الله مبخلة نول بحوس لي شرينك وبحين لا حول كل دق الماء كادم بيا بخلي ما شو سكي ماذا مجبنة هدي جهاد إلهي خير الله بحولي ما ولا يقدم بي أولاد بقدم بس فلاني ماذا ما شو سجلتها مجهل هضوح برا لها وحولي إسلامي وحنكم مسكول سنة أولادي ما ماشي خير كلكم برا لها وشقكم لها إمي سواح برنا يسمر كي جورسين قلالهم بحي وحول صلى الله عليه وسلم محزنة ما أنت الماء هذا الشيء دبر مركوكي ماذا ما أنت المروبك وقبانيس أفرتا شيء أيا صاب ونقون كرا إنه إيمان كهاسو دعاء محايل هدي فلاني من لقاهل بخلنا لقاهل حزني جاء ما لا يعني كان أبته جهلنا لقاهل إيمان كهاسو دعاء يوحي لم يذا ولذلك صلى الله عليه وسلم مسي يقول قالينا فاهم فربنا بو أرنك مركا وكبحي وحنوجد بين محاد دوانا ونقون كرا هدان قرني أن سجاني إيمان كان إنه ضعف وكدره أن أجاني أسباب كانت إنه إيمان كهاصل محن كده وين كرنا ودوّد الرادين الرمانتين دوّد بسيط أنت دوّد أن أوجد بنوع الربعين أنت المامو أرنك كان هرتا عذر مركو يماذا دقاتير توحي كو كهلان وجهرين هرتا مل الدوين كرا مسلمة الدوين كرا دوّد يسمعها هنا مثل دبدا الرادين هو الموضن كم بالو قلا مسودن كلام ودنا لقى هلا هرتا محن كهلنا أرنك كان عن كهلنا هرتا مل الدوين كرا إلا الدوين كرا دول قضب بنكم وجنيه صلى الله عليه وسلم حديث حاكم وكوري المستدركة شيخ ناسنا سلسلة صحيحة وكل شيء كل شنب غزديت إشام بروح ليه إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم إيمانك باليوبا ودا ماذا إيمانك لابتين كجر ودا ماذا كما يخلق الثوب سيدا مرض ودا ما تقول ودا ماذا فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم إلى واحد ويدي ستان إن قلوبتين أم إيمانك قلوبتين مركا أو كعس بونيسين حديثك وحو نوغو بشاري إن سورة قل أي تا إيمانك إلا دوين كرو ضعف الإيمان إلا دوين كرو أي نوغو بشاري حديثك وحو نوموجي بمجرد قعمها كران وتاقنا إن إله سبحانه وتعالى إيمانك نوسو علينا يكو قضبك الله بعد وحو صلى الله عليه وسلم حديثك لأوكيل سلسلة صحيحة وكشة لبقل إلا بقل إلا إحدى نسيدات شيخ ناصر وحيري ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر مجرد وير قلبي إلا وحا اسكو قدبتا ضرور بقى اسكو قدبتا سيدا ضرور تضيح اسكو قدبتا وكله أو قريضا وكله مركز بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذا الضيح وساء وإيفيو أيا وحا كو إيمانيس ضرور بقى اسكو قدبيسا كدبنو قد عروبيا مقدبو نقونيا إذا تجلت عنه فأضاء مركا أي كفة إذا انتو ساء وقال حتنا وإيفيا أرنكا وركم موجنا أبو نعيم الأسبهاني وشاقي أبو نعيم في الحلي وكشاقي وحو موجنا حديث وحو موجنا قلبي قسو نظيف فيها هي وحا كو إيمان كرتا وح مركا كو إيمان كرا مركا اسكو قدبا أو قرية سيدا ضيح سوء إفيا ومركي هدي نالكن إفيا مرسا لوجوها وخلا مركي مجدي ونقل سماشة وهكذا الإيمان سو قفك إيمان كيسو ساء وشدين هاي أي هل مروح نقول قف إيمان كيسو صدعي وأنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا أريكا وحو موجنا يا إنان لغا قوسانو أي جري كرتو أما أي إيمان كرتو فرصد أو إلهي سبحانه وتعالى نوافجين كرو هدي ما أنت إيمان كان ساء نقض
mar'un in laga bixi doono arrinkaa wuxuu muujinayaa in iimaankii la daweyn karo qodobka kale aan u gudbaya wuxuu yahay caqiidatu ahlusunna waljamaaca ayaa waxay tahay murtakazaad bay ka dhaqaaqdaa culummada markay ka hadleen bay waxay yidhahdeen iimaanka marka la qeexayo nutqun billisaani waa wax afka laga sheego waictiqaadun biljinaani qalbigana laga ictiqaadiyo وعمل بالأركان حمناهنا لغا سمايو مركز وحي كدر جنين الطحاوية يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان طاعة قفك مركو لي ماذا كرب أكعا معسي مركو لي ماذا هصب أدعا وحانا مودنا قوله جل وعلا أيكم زادت هذه إيمانا منافقين تمركز ما شاف ديان آيات يسودك ويسويدين يعني وريا إيمان كسو كردي ويسويدين بمعنى وحا أجيين إن إيمان كرنا ووقعه هصنا ودعا وعمودنا قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده قفكي حمي أركا قعنتها كبابيو هدوسا كرنا أف كيسا عرب كيسا وهكا الله هدوسا كرنا قلبك هكنا مركز وحي راسك حريقه وذلك أضعف الإيمان ماشى قدام بيس إيمانك واكا أضعف مركو يري إني ماشى جرتان أغنها أقوان إني جرتان أغنها معايا شيء مركا له بس كيسا وجرا ولذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلف هذه الأمة وحال قصوري إني به جرى من فقه العبد قفك إنه الدين كفهم سيء وحال وجهه إنه دريال قارة أوسي إيمان كيسة محا نقصاني محا زيادة قفك فقه كيسة وحال ويقانا إنه أقاد إيمان كيسة كرم وكعي مش هصب ودعي وحي لمده ولذلك وضاركتي هذا مرق قفك سوق ودحمره دمر قاقاوان ماشي الجوغان ماشي الموسيقى وكشنيها ماشي الفيلم وكشنيها ودريمس أضوء عريري دريمي صوب حيسان قبري مركز استاكتنا أدول استاكتنا ضدكي جيريودي ضدكي هرا الله حوالي أسوح السنة قلبي قاعد دبعيا أرنقا وحو دليل وياي إيمانك إنه كرد إنه هاصو دعيا وأنا قضية مهمة ديدا الله صلى الله عليه وسلم حديث كالأكيري لكل عمل شرة بيري عمل وضبوحو له وقت ونشاط وياي وحكا الصون نشاطنا ضعفي باكوي ماذا مركز شري قفك ضعفي وسوق ليو حديث السنة إذا أوضحه روحه إسقى ولي ما نبي الحديث أحمد باوريه شيخ ناصر نحن كنت صحيح ترغيب كنتن إيشان نمبر كيس حديث نمبر كيسوية أنت وحنا نسلا قرناي إن أي صورة تقل أي تهاي إن إيمانك لكردين كرا لكبعين كرا كر لا دي كرا لا أتكين كرا لحجين كرا إن صورة تقل تهاي إنه هاصو دي كرا نقصان أي قلي كرتو نقيل وكو إيمان كرا وكلا دادن كرا حديثك هذه كان أنت سنفهمه مر هدي انت اللي فاهمين محان كدوينا مركا دايغنوسيسكي واكنا اي نو شيغن سلف هذه الامه كو اسكو داي ان اسكو داين كلما قرانك الهي ان اقرننا ان ان لفل قلنا اياتها الهي ان لو تدبر ايات والبون سو مرتين قفكو كتدبره الله سبحانه وتعالى قرانك وحو يري وننزل من القران ما هو شفاء قرانك وحن ددك كسو دادجينا وحا اما ان كسو دجينا وحا كميده واحد ددك عافيماد و نقدو بوكسيه ما دام ضعفك وعذر وياي ما حد دوين كره قران كان دوين كره صلى الله عليه وسلم وحال شيغا هبين هذا كميد تكني وحال شيغا الا لغا غار صلاه الفجر هل ايات بسوء العلنيه ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم فانك انت العزيز الحكيم وايدي على لسان نبي الله عيسى يوم القيامه وديه دونه الهي وضدك هداد عذابتنا واضم ضاد هذا دود من دافتنا الرب وأذا لقوية قانا أرنكا أذا غالب وفلسا صلى الله عليه وسلم آيات بسوء العلمي ودنا سنة معناها آيات دي بقى كده دقة يسوي آيات والبابا ولذلك وحلا جاب القرآن تفسير كيسين هذا نقول سواق هذا ترجمة هذا سواق هذا دقة يسوع علماء آيات كذا أي سيء فصيرة يعني هل آيات أو كذا دكتة ومعنى هذا أفهم كنت كتير وحيك خير بناني ساكوا بدل معنى هذا أنا أفهم سنين وعد عظيم عبد الله بن عمير أيا وحو إيمن عائشة إيمن مركز رياء عائشة وحنو باهنا وحا أقو ياب كبضان الرسول كأتكو أركتين دي شيكتي مركز أوين إسكالا دعا مركز وحي تري وحن حستا هبين هذا كمدا إنو رسول كإستاغي وربا إنو إساغا ربا إنو تكدو مركز وحن يسيري أكفر يسوع مركز يسيري ذريني عائشة ما أنت إسكا كيدا إلهي بان عبدا يعاوى فرها يقر مركز وحن يريد يا رسول الله إني لو أحب قربك إن أنكو أجوغان جعلها وأحب ما يسرك وحا أديك فرح قلينا آدبان وجعلها مركز يحي عائشة إذا هل ليس هو يساق رسول كابين كابين سمي بكال ليس هو ويسيستي
waxay tiri salaad buu galay wuu ooyay ilaa dhabtiisu ay ka qoyday bay tiri kadibna ooyintiisu sii waday bay tiri ilaa dhulka uu ka qoyay saabuu ku sugnaa ilaa marka dambe bilaal baa u yimid oo yidhi salaaddii baa la gaaray rasuul allah soo baxay markaas bilaal uu la yaabay wuxuu yidhi yaa rasuul allah ma adaa ooyaya adigoo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigaaga kii soo horreeyey kii dambeeyey buu ku dhaafay markaasuu yidhi afalaa akuuna cabdan shakuuran ilahay miyaanan u mahad celinayn bilaal buu hadalkaa ku yidhi kadib buu wuxuu yidhi yaa bilaal xalay waxaa laygu soo dejiyey aayad halaag baana u sugnaaday buu yidhi qofkii aayaddaa aqriyay macnaheedana aanan dhuuxin aayadaa laygu soo dejiyey buu yidhi waylun liman qara'aha walam yatafakkar fiiha qofkaanan u kuurgelin tafakkurna aanan ku samayn aayadaas halaag baa u sugnaaday buu yidhi aayadaha waxay ahayn ina fii khalqi الsamaawaati wاlأrض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلهي سبحانه وتعالى كيسة ويقول رأيان سماوات كأرضها إذ بدل كهبين كإيه مالنتين انت وحا كسغا على مضى dadka in dheer garatada ay duruus kala dhex bixi karaan waa kuwa ilaahay xusa marka ay taagan yihiin markay fadhiyaan dhinac markay yihiin aayad walbana la falgala dadka way ay la amaanay markaas wuxuu yiri aayadu way sii wada wuxuu kharbana ma khalaqta hada baatilan markay arkaan samawaadkana oo ay la yaabaan sida samawaadka u qurux badan yihiin sida ilaahay tiir la'aan u taagay sida sanad guura aan loo rinjiyeen aan lahayn hal badal midka buluuga muddo ka soo wareegtay iyadoo aan daxlaysanay markay arkeen wuxuu ma khalaqta hada baatilan ilaahay ciyaar arrinkan iyo baatil umadan abuur faqina cadaab an-nar ayadaha wa ayada rasuulullah sallallahu alayhi wasallam taabtabe ahaayeen marna waxay galeen khalqullah marna waxay u gudbeen dhikrullah ayadaha marka kalena waxay u gudbeen at-tafakkuru fi makhluuqatillah ugu dambeeyna waxa lagu khatimay ilaahay subhanahu wa ta'ala lama galay waana arrimaha ugu khatarsan ayadahaas marka ay isla aadeen quraanka maxaa yeelay allah subhanahu wa ta'ala waxa ku sugan wacdi iyo waciid baa ku sugan ولذلك آياتها قرآن كسكم منا صلى الله عليه وسلم صومرين حديث شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب وحا عرئي قليي هود ولا لهدي كوا وإك انت عن عرض اللي قال حديث السلسلة الصحيحة أي شيخ ناصر الكوري مجلد اللباد ليه بقول تدباتني سقال معايا لو وحا كسكم حقائق إيمانية تكاليف دينية وحا كسكم سورة هود فاستقم كما أمرت نبي واحد أتصنا تاسد الغفرين يا أتصنا كرم أرن سهلا ما علي صدام ما دوس لك صار فرينت إلهي أبديه أظن سرفين سيدا أيضا هو القلب الليل وأرن سهلا ما هين مركز أرن سعر رأيه لبي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر يسوي حق قلب الجلعانة ما بجرم له وعن الله الشيخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مركو أقري إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع عذابك ربك ودعيا إنه حنون صدال الشيخ وأنا الله من كرت ابن كثير ولذلك وحل الشيخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ننتي أبو لؤلؤ المجوسي ودلي الدونه هذا وحاول عمر بن الخطاب سوى إنه أقريه سورة يوسف أقرنجل مركي وقرآن كسوء وذي بوحو سوء قال آيات يهد إنما أشكو بثي وحزني إلى الله آيات مركو سوء قال وحي لي صحابة اللي تكنيسي أو ينت قدال بالغم مقلي آد بأتابت إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قدال بالغم مقلي بيردتك أو نوعا ما كلمة مركا أي تابتي وحي لمده عثمان بن عفان وهذا الله ساسو كلا لغسو وري وحيري لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله ويناك سنان لهيك هذه قلوبتنا أي طهير لهيد وحا أي كدرتو كلامك إلهي أرنك أني ويناك سنبي بو أهل ويري وهذه وحي لمده قاربا وحا لسو حكتا إن أحد الكبار إنه دنتي وحنا لغو مقعابا وحا أرنك كحكايون إبراهيم المنشار ابن بشار وحو ليهي علي بن الفضيل وحا لشيغا مركو أقري ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد آيادا درتيد بو دنتي بو رحمة الله عليه وحكا لو مدمن وأنا أرن رنتي لباتد يعني وحيابا بضا مركا تابانا يكمل تاي وما إلى ذلك من الأمور قاركود حتى مركا أي سجودان أيا لغا دريم جري وحانو قد بينا مسألة كلا مركا لا حريرتا داود اللواد وحانو قد بينا العلاج الثاني طلبات بانو قد بينا استشعار عظمة الله
إن إلهي وين كيس الله درامه وهبك كلية وهبك اللباد وأنا دوّد اللباد إلهي سبحانه وتعالى مقعي اسكو شيء tilmaamooyin buu isku sheego sifaad baa lagu magacaabaa macaanida waxay u baahan yihiin sideeda in loo dhuuxo magacyada iyo tilmaamayaasha ilaahay ka yimid waa inaadan rogrogin waa inaadan tactiilinin waa inaadan takyiifinin waa inaadan dhin macaanida la fahmi waa tafwiid waa inaadan dhihin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu isku sheegoo dhan in la dhuuxay u baahan yahay laakiin markaad leedahay alasmaa wasifaat baan sugayaa miraheedana waa lagaaga baahan yahay marka culimada muruha kama jaad ilay mirheeda lagaga baahan in allah samiic markaad ilaahay samci maqal u sugtid ogow kalmad kasto afkaaga ka soo baxaysa inuu ilaahay maqlay basiir markaad tiraahid ilaahay waxbuu arkaa ogow inuu ilaahay ku arkayo oo wax ka soo sameynaysa yaclamu khaa'inata al-a'yun wama tukhfi as-sudur markaad sugayso culuwullahi jalla wa ala wa huwa al-qaahiru fawqa cibaadihi ogow allah subxaanahu wa tacaala inay awooddiisana kaa sarrayso ciqaabkiisana marka uu kaa sarreeyo ogow إلهي سبحانه وتعالى سيدة ذاتيا ورتبة ومكانة وما كسب وكاغا سرين شباب إن لكاغا سرين أقول وحد وقعتا كلما أقفك وأقري قوله جل وعلا وسع كل شيء علما إنه إلهي أقيه ملك السجوكتي الله ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلمون ما يسرون وما يعلنون قفك مركو بستها كوهس جرء الرقية إن إلهي والله سعدا إنه قاعد اللبهين قفك مركو أقرنا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إلهي ما دام سيدا دقيقة السجن أكرتك وحكس ما دام أسوق أجو فلك السوق كاسف لله سبحانه وتعالى أجيه وعد كله أجاتا مرك الله سبحانه وتعالى أوليه حديثك صلى الله عليه وسلم ما يدي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلهي سوح أقبته أرضنا ربنا جعنتي سكجرت يوم القيامة مركي الجارة أرمها صدق وحلو بهايا قفك مركي آنسا آياتها أنا أدل مرين ومعاني ذا إلهي وروحه صفاتك إله ولا جيدا أسماء ذا إلهي الرجال وحي كبير إيمانك مركي إنه زيادة لأن أضاء أقرين مركي إله وكم مغلا حنتي بجوجينيسا إله وكو أركع حميد بجوجينيسا إلهي بقول الصعود وحك استوئس دمرين هيد بجوجينيسا وأنا هبك اللي قد وينكر إيمانك بإذن الله سبحانه وتعالى الرجال سدحات اللي قد وينكر وحيه طلب العلم الشرعي دينت إلهي أنت كتقانو أي إيمانك ولا إجاه هدي إلهي سبحانه وتعالى كوا فجيه أو كجرسيه إن تكون عمل فشل الله سبحانه وتعالى قرآن كم حكيري إنما يخشى الله من عباده العلماء إلهي وحى كبقاون الدومدي حق هذا مرك الله بحه حق هذا مرك الله بحه كوا علماء دينك إلهي يقان قدرك إيه أنت دينك إلهي أتكتقانا بإذن الله سبحانه وتعالى إيمانك ونمرك أولئك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والمجنجن با والملس بربرديكي كرا اسكو مال ملقو شيء كرا نفس ما كوا ضبحي كران كوا وحي يقاني كوا نحقون اسكو مدما إيمان كاغا مركا وحو دواوي كرا أما دواوي حدوه اللي كرتا أنت نوعا ما طلب العلم الشريعة كفهم سنتا كتاب ير وسلف هذه الأمة قرآن كتاب ير أو هل حديث لا بحديث صحيح حنبارسين كتاب ير أو أفر أيضاضو ضد ثقادي أي شرحين انت بإيمانك كورنين كرت بإذن الله سبحانه وتعالى وأنا مسألة أباهنا ولذلك وحن ماشان أن كشيقلا الشباب جزاهم الله خيرا حماس دينية كجرة انت ولا دذاليا انت وحال أورجاناز قرانيا مؤتمرات انت علماء إياه قرب أردي وحكا خير بدل ملا إلها وزيادية مشكلة درتها وحيتها نوال بابا أفريقيا مركو كسو بحي فتح مجيد كباب السادس ماشو مري ما تأغنت رياض الصالحين كأشنت حديثة وقوه الرئيس أغنت نحوها مركي ما لا ينصرف لسوق جارة وقدم بيسا مرضى ومرة عضب انت كتاب سوء أغرستيها وقدم بس جزء عميه ومرة انت مركو يمنا شيخ فلان با فتوى شيخ فلان با شاقي عجلة با ماشي وجدت دن كلا كتاب إنه الرعضه ومسألة هوسك حريق ديار أمها انت أرنك وجلن هوس بقفك ودعي إيمان كيس ولذلك وحن أقنها ضد فربضان أخيارا ودعوة قادة وهان جري هراي قادة الأود جري أو نوع ما كتبت نوع أغري جري ما عندنا سوق كلام وحكى لنا ما محايلة هدي رسبي هابو كدير هذا وأنا مهم كل ما ما أنت نوعا ما علمي هوس ودعانا إيمان كان هوس ودعايا وأنا أرن متلازمانا وأنقف له ويدينا يا باك لو نقول بينهم حتى لزوم حلقة الذكر وما شانا وكلا ضدك إلهي سبحانه وتعالى نقول حسين أوليري إلهي سبحانه وتعالى رحمة جيسا الضبوشة سكينة كسو الدكتور إلهي بابو وقوفا أنت ما ملائكتي وحي لمده
iyo khalqigiisa kale waana arrin aan sahlanayn waana xadiidkii baana muujinaya laa yaqcudu qawman yadkuruuna allaha ilaa xafathum almalaa'ika dad meel isugu yimid ma jiraan iyagoo ilaahay subxaana wa tacaala xusay ilaa malaa'ig baa hareeraha ka fadhiisata raxmad ilaahay baa ku soo daadegta sakiinada ilaahay baa qarqinaysa iyagoo dhanba xadiid kalena wuxuu muujinayaa markii la isugu yimaado xuska ilaahay markaan kala tagno hadda oo qof walba meeshiisa u aado waxaanan leeyahay innagoo aanan maqlayn malaa'ig baa nala hadlayso quumuu makfuuran lakum war istaaga idinkoo dembigiina la dhaafay wax sahlan maaha waa meeshanaad fadhida garoonkan ayaa hadda biidni illaahi subxaana wa tacaala ilaan aayad iyo xadiid baanu isku sheegayna qaala tacaala wa qaala rasuulaan isku sheegayna xalaal iyo xaaraan baan isku sheegayna markaan istaagnay biidni illaah ilaahay waxaan weydiisanayna xadiidka inaan ku dhowowno na la yidhaahdo quumuu makfuuran lakum aw makfuuriina lakum istaaga idinkoo dembigiina la dhaafay arrin sahlan maaha la fududaysta maaha waxaa hadigii salafka ka mid ah inay dhihi jireen tacaaluu bina nu'min saaca warna fariisiya ilaahay subxana wa tacala hal saacad aan rumaynay macnaheeda ma waxaa loola jeedaa ilaahay iimaankiisa aan baartaan ka dhigna hal sac keliya kadibna waxaan doon aan samayna maaha ee halkan saac aan u adeegsanay iimaanka saan u kobcin lahayn kor ugu qaadi lahayn waxyaabaha iimaanka xoojiye waxaa ka mid ah qofka isagoo badiya alcamal asaalix nuqdadanna muhiimaddeeday leedahay aad bay muhiim u tahay nuqdadan iyada acmaasha saalixa iyadoo badiya maxaa ula jeedaa meel keliya camal keliya ha ku koobsan xadiidkan haddaa ila dhegaysataan abu bakr radi allahu canhu ee bukhaari uu wariyey rasuulkaa maalin saxaabadu sala allahu alay waslm intuu ka dhex istaago la hadla wuxuu yidhi war maanta yaa waa bariisay isagoo sooman abu bakr baa gacanta taagay wuxuu yidhi ana yaa rasuulallah aniga haddana wuxuu yidhi maanta yaa janaaso raacay ana yaa rasuulallah anigaa raacay buu yidhi abu bakr war maanta yaa maskiin quudi anigaa quudi ya rasuul allah maanta yaa qof xanuunsan soo boqday anigaa boqda rasuul allah markaasuu yidhi sala allahu calayh wasalam ma jtamacna fi imri'in intaan khasladood ee la sheegay isuguma tagaan qof mu'mina qof bini aadama ilaa jannadu gala haddii laga helo hal maalin keliya waxaa lagu haya isagoo sooman isagoo janaaso raacay isagoo qof xanuunsan soo booqday isagoo qof maskiina markaa gudiyay jannadu galay maalin keliya waxaa loo baahay jadwal inaad degsatid sida jadwalka cuntada iyo kan aad marka aad meel booqasho ku aadaysidba ay muhiim ay kugu tahay inaad wax kasta kala saartay arrinkana meeshaada ku dar warqadiina waa la isu taagay jadwalkaaga waa inuu noqdo tight schedule waa inuu noqdo walidaalika saxaabatu rasuulillahi sal alla alayh wasalam saxaabadii ay yidhiin salaf hadi ibn cabdiraxmaan ibn mahdi baa wuxuu yidhi waxaan hubaa buu yidhi xamaad ibnu salam haddii la dhihi lahaa xamaadoo berri baad dhimanaysaa awood uma yeesheen buu yidhi camalkiisa inu wax ku daro yacni min asabaax lilleyl ilaa habeenkii maalintii ilaa habeenkii mar walba camal khayru markaa ku jira laakiin haddii la yidhaha xamaadoo berri baad dhimanaysaa laba ragca ku dar waqtiba uma hayo maxaa yeele waa buuxaa mar kastaba camal saalix ku jira siduu camalka saalix ugu mashquulsan obtaad ugu hawo waxaan kaloo tilmaamayaa camal saalixa marka la maqlo waxaa laga qofka inuu isdaaliya laga yaabo ama meelo kale uu kala dhaco dhowr qodob baa la ilaalinaya kow camal saalixa markaa maqasho waa in loo degdego maxaa yeele aayad walba qur'aaniya ee ka hadlaysa camalka saalixa allah subxaana wa tacala wasaaricuu ilaa makfira war u degdega saabiquu ilaa makfira u degdega marna saabiqu marna saaricu u degdega marna u dhaqtama صلى الله عليه وسلم حديثي وحا كسو أرار أنس بن مالك laga wariyay غزوة بدر marka mushrikiinta ay soo dhawaadeen ay wuxuu quumu ila jannatin 'ardaha samaawaati wal ard war istaaga waxaad aadaan janno ballarkeeda samaawaadka ardadu u la mid yahay markaas Umayr ayaa intuu istaagay wuxuu ya rasuulallah janna ballarkeeda inta leeg markaas yiraah bakhin waa meeshaad ka dhihi leedeen way dhactay arrin sahlan ma uu dhaqaaqay kadib wuxuu la soo baxay timir markaa meel ugu jirtay timirtii uu siray balcun haddana wuxuu yidhi wallahi haddaan noolaado intay timirtaan ay ka dhammaato khalaas wuu yidhi waaba nin markaa liibaanamay intuu tuura meesha intuu aaday buu jihaadkii galay meeshaasuu ku shahiiday nabiyullaahi muuse markii miiqaadka lagu wacay muxuu yidhi wacajiltu ilayka rabbi litardaa adaan kuu soo degdegay camalka khayrka qofka markuu maqlo waa inaan lagaaga hormarin markii laga hadlay dadkii ambiyada ilaahi subxaana wa tacaala markuu soo taxay muxuu yidhi innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana ragaban waraaban khayr marka la sheegay way u degdegi jireen حديث waxaa ku soo arooray at-tu'adatu fi kulli shay wax kastoo la sameeyo tartiibso illa fi amal al-khayr laakiin khayrka marka la sameeyo ha tartiibsanin orad intaad ordi kartid way degdeg arrinka labaad loo baahay amal saalix marka la sameeyo waa inaad daa'imtid حديث waxaa ku soo arooray amal waxa ugu khayr badan midka qofka uu daa'ima haba yaraade har ragco habeenkii aadan ka tagin ayaa waxay ka khayr badan tahay ku ragco tukan lahayd هل بيت أو قرآن الصبح والبابا كوركم من
oo raatib ku ah ay wuxuu ka khayr badan laba jalad inaad aqrido oo ka tagi doontid camalka daa'imitaanki sallallahu alayhi wasallam xadiis wuxuu yiri war israaciya umrada iyo xajka oo dambiga tirtiraan iyo wixii la mid qodobka saddexaad loo baahay camalka saalix marka la sameeyo waa inuu qofka dadaalo dadaal baa loo baahan yahay qofku waa inuu san gaabin oo dadaal fara badan inuu marka uu muujiyo waxaan haynaa fi ghayri ma hadith wa fi ghayri ma aya marka laga hadlay dadkii ahlu khayrka salatu leelka maxaa leeyahay kaanu qalilan min al-layl ma yahja'un maada aday ku jirtaa ma waxa la aadaysa sida ibn al-qayyim uu yiri mazaidan ka dhignaa misana masdariyan ka dhignaa manaafiyan ka dhignaa misana masdariyan ka dhignaa labada mar ma habeenka in yar miyay ka soo jeedi jireen mise in yar bay ka tukan jireen labada waa lagu fasiray macnaha dadaalkiisa u bixin jireen arrinka kale walidaalka salaf hada al-umma dadaalka waxay gaareen waxay leeyihiin waxa dhici jirtay axaduhum guriga markuu la seexdo haweentiisa oo firaashka uu la seexdo firaashku ka xaluulan jiray waa ka soo dhaxbixi jiray saysan u ogaanin inuu salaatu leil uu tukanayo wuxuu ka baqay in la yiraahdo fulaanun salaatu leil buu tukaday uu dhuuman jiray ijtihaadka meeshaas uu la gaaray hatta azawjaat fil buyut aanay ogaanin dadka waxay sameynayaan arrin kale loo baahay waxa uu yahay marka amal saalix la sameynayo waa inaad nafsadaada aadan daalin walaalka sallallahu alayhi wasallam markuu soo galay Zaynab oo la yiri xarib ay meel ku xiratay markay tukanaysay ku istaagtaa markay daashay wuxuu yiri gooya ilaahay subhanahu wa ta'ala amal saasoo kale ma jecla haddaad daashidna nasab uu yiri walaalka waa tan la diiday qofka markii hurdada ay hayso inuu amal marka uu sameeyo xadiisna waxa ku soo aroray amalka intaad karaysaan kala imaada القصد تبلغ ورد دحيس ودحيسته وادغاري دونتان حديث البخاري باوري حديث لنا waxa ku soo aroray in hada diin yusr wala yushad ad-din ahad illa ghalaba wufudud yahay ha isku adkeynina waa tan yiri sallallahu alayhi wasallam waxa kale loo baahay amalka marka la sameeyo qodobka shanaad in baqrin iyo qabuul adoo bimaana raja u dhaxeeyo waa in amalka sameeyay waa inaad ka baqdin amal laga aqbali waaya رجنا وإن يكون جرت في نفس الوقت إلى سبحانه وتعالى إنه كأقبل الله بدو أنا ودحيسد واتن مركي لويديي الله سبحانه وتعالى أيديس والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قال يا الله إيماني وحل صاري يدو قلوبته بقنيش عائشة وحتر يا رسول الله ما وحل لجد قال ياها قمرضع عبه توغني ماذا نصمي مركز ستر يا ابنة الصديق مركز سيري مايا سامودي سد ما دتك لقاها اللي ودتك صومي والصلاة صدقة بحينه لكن وحي كبقيان إن عمل كود إلهي سبحانه وتعالى أنا مركا كأقبلن وأنا كوا خير كودك دقي وتنوير آياتي صلى الله عليه وسلم أي يسوع مركا سود اللي شدي أرنك اللي حاد الدواد إنه منكر عملك إيمانك إنه كرر وحكم ذا تنويع العبادات عبادة هل عبادة كلية هكو قابسن ولذلك وحلو بين ذكرك مركا الشيء عرب كانوا النقضة بدن كانوا النقضة دعاء سوق جليسة سننتي وحكم ذا بر الأيتام بكم ذا إن حوالجي ذا بر الوالدين ما كم ذا أيتامتي ولا كفالة قارة كم ذا مساجدي ولا دسا كم ذا جهادتي ولا إنفاقية كم ذا خيراتك ضدك الله ورث ذا كم ذا مدارسي ولا ساق كم ذا وعيابها صدنا نحيل من أنت صدنا أي مركز سوق جليه وعيابها الدوية وح كم ذا قفك إنه كبق سوء الخاتمة مثلا إذا كون فوقان ما سوء الخاتم يحيل لم ذا محايلة محاضرة صوص عتا أي يقول بيجنتها بإذن الله سبحانه وتعالى لكن واحد حسوسنا يا سلف هذه الأمة وحي يراهدين انت أنا سلف كان شيء رسولك وحيري أكثرون من ذكر هذه من اللذات انت أنا شيء أقوال الصحابة يرقي كلا سلف كان رئيس السلف عن شيء قائدهم نيك أقول صلى الله عليه وسلم هذا الكوير أكثرون من ذكر هذه من اللذات كان معانك قوية بديع حسوستي سبوير موت كمرة يصير دقا وحي علماء مركا يراهدين قفكي موت كحسوس تصدح شيبة إلهي سبحانه وتعالى وقب بشارة أي الله كرامه كو توبديسا سو دغدغتا قلبيسا قناعه لغليا عبادتيسا نشاط غلي قفكي موت كان حسوسنا صدح arimood baa lagu imtixaana koo waxa lagu imtixaana isagoo toobada dib u dhiganaya isagoo raali aanan ku noqonayn wax alla wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu si kafaaf ma aqbalayo iyo isagoo cibaadada marka ka gaabinay waxyaabaha marka iimaanka cusboonaysi waxa kamida inuu qofku uu xusuusto manazil al-aakhirah in darajaad far badan yawm al-qiyaamah ay jiri doonaan إن سراد وجردون إن الجنة يجردون إن النار يجردون وحصل إنه حسوسته إيمانك وكرد بإذن الله سبحانه وتعالى وعيابها إيمانك آدي أدوات كي وحا كمين ضل مرة ما دام وقتك قلنا ماذا قفك إنه لفل قلاء آيات كان كونية ضي حامدوا بعد وين المركب الساينس لآدم أقول يا الله سبحانه وتعالى إنه كذب به راب كيبا يرى إن لفل قشد
dabayl daran baa timid barafkii baa batay walidaalika caaisha waxay tiri sallallahu alayhi wasallam haddii koonka kan wax iska bedelo ama dabayl baa badatay ama roob baa la waayay ama roob baa batay wajigiisaan ka garan jirnay bay tiri walidaalika maalmaha kamid dabayl daran aad aan baa dhabatay bay tiri markaas rasuulullah sallallahu wajigiisu isbedelay markaas yaa rasuulallah maxaa saad maaragtay mutashaa'im u noqotay roob buu noqon karaa markaas wuxuu yiri waxaan ka baqayaa in la yiraahdo qaliil bal huwa aaridun mumtiruna dabayl dadka halaagaysa inay tahan ka baqayaa buu yiri saadartii uu la falgali jiray arrinkan arrin saxiix u ahaa waa la sameyn jiray wadankii oo inkastoo sunnada dadka ay ka tagi jireen meeshii khusuuf markuu dhaco qorax madoobaad iyo dayax madoobaad waxa ay masaajid inta la isugu yimaado la tukado noocan ma dadkana la baqdin geliyo oo khoof lagu beero laakiin waxyaabo qalad ay dadku sameyn jireen sunna aanan ahayn inta dabqaada marka uusi uu ku jira meelaha la wareegi jiray la ilaha illa allah ya ghafirun khafu rabbakum ya muslimun tiibay marka la aadeen laakiin baamul khawfki waa loo baahnaa in marka hab wanaagsan marka loo sheego waxyaabaha daweyna waxa kamid ah dhikrullahi jalla wa ala allah subhanahu wa ta'ala oo la xuso maxaa yeelay xadiis waxa uu aayad waxayd ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub haddii aad ku gaabsatid aayadda kaliya muhaadaradan dhan aayaddaas noogu filan maxaa yeelay muhaadarada waxaan ku bilaabanay keyword ah fura ah qalbigu dheeliya qalbigu markuu wuxuu u baahan inuu idmiinaan yeesho inuu sugnaado u baahan yahay maxaa suga bi dhikrillahi tatma'innul qulub idan qalbigan marka mar walba saa u rogrogmaya wuxuu ku sugnaan karaa bi dhikrillahi jalla wa ala bi idnillahi subhanahu wa ta'ala waxyaabaha aan ku soo khatimayo wuxuu yahay am noqdadan ku soo khatimayo ducada ilaahay in ilaahay subhanahu wa ta'ala la baryo fas'alu allah an yujaddida al-iman fi qulubikum tan hadithu wa hadithan wa tan aqra ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid xaaladda qofka ilaahay uu dhow yahay markuu sujuudsan yahay sujuudda oo marka la badiyo inta iyo masaa'il kale wali harsan oo runtii tirada ka badatay ayaan runtii waxaan u dayn lahaa habkaaba iimaanka lagu daweyn karaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weydiisanayna an yujaddida iimanana وأن يقوي إيماننا وأن يزيد إيماننا وأن يقال لنا قوموا مغفورين لكم بإذن الله سبحانه وتعالى إنه جواد بر رؤوف رحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله توفيق